labada nin ee naftoodurayaasha ah ee ku horqarxay agaarka isgool Bulisiya ee magaalada Muqdisho uu ku soconayay shirka ansixinta dastuurka ee Soomaaliya ee yeelan doonto ayaa labada nin waxay ahaayeen kuwa iska soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxaana mid kamid ah askarta dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo markii hore uu ku guuleystay in mid kamid ah labada nin ay qarxa inuu xabadu ku dhufto kadibna uu sidaasi uu ku qorxo halka midka kalena uu 2 daqiiqo kadib uu halkaas isna ku qorxay qaraxa ayaa waxa ku geeriyooday labadii nin ee qaraxa fulisay iyadoo dhaawac uu soo gaaray qaar kamid ah askarta booliska ee ku sugnaa agagaarka meesha uu qaraxa uu ka dhacay taliyaha ciidamada nabad sugidda ee gobolka Banaadir Khaliif Axmed Ereg oo warbaahinta la hadlayna waxa uu ka warbixiyay qaabka uu qaraxa u dhacay waxa dhacday in saaki halkan ay isku soo dayeen laba nin oo inay qarxiyaan raba ugu tala galay inay shirka gudaha isku qarxiyaan waxayna wateen kaarar faarsa isla maraantaas waxaan helnay xogta rasmiga ahayd waxaana u urgelinay ciidamadii meesha joogay labadaas nin waxa lagu guuleystay in laga hortago oo meeshii ay taagnaayeen inta aysan qarax samayn oo aad u jeedin oo banaanka meesha laamgashadiisa ah in lagu qarto mid kamid ah nimanka waxa la yiraahdaa sawirkiisii oo kaamil waa kana Axmed Nuur Yiri baleeyada waa ninka iska xiyay mid kamid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya oo isna warbaahinta kula hadlay goobtii uu qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa uu tilmaamay in qaraxyadani ahaayeen kuwa ay fashiliyeen ciidamada dawladda ku meel gaarka iyo kuwa amisom waxaana isku dayeen inay dad qaraxyo wada soo galaan mana ahan markii ugu horeysay oo isku dayaan intaas waxa weey ciidanku waa shaqeynayeen siyaabo kala duwan baa lagu tagay maanta markaa waxay isku dayeen in si toos ah soo galaan ciidamadu waa istaajiyeen bacdina istaajiyeen waxay diideen inay amar ciidanka qaataan ciidamaduna waxay qabaan cidii isku dayda inay xoog ku soo gasho inay isticmaalaan awood kasta isticmaali karaan isticmaalaan bacdina waxa soo noqotay inay mid kamid ah ay shubgareeyaan kii la shubgareeyay bacdina waxa soo baxday in waxyaabaha qarxa ay xirnaayeen oo meesha qarxay kii kale tan waxa way dhaawac noqday asagina markii maxaa la yiraahdaa xabadii asan u tuujiyay meesha u tuujiyay qarxay waxay ku sanaysaa dheeraadka ciidanka ay shaqay sameynayaan maxaa la yiraahdaa ciidamada booliska iyo bisbida oo isla socda iyo ciidanka Amazon oo taageeynay ay ku guuleysteen inay tuujiyaan waxyaabo fara badan oo toos loogu soo sida runtii qarax ma ahayn in la isqarxiyo qarax la qarxiyo weey oo ciidanku ay soo gareeyeen oo ay qarxiyeen habeeraatee wax maxaa la yiraahdaa dhibaatada gaarin jirin nin baa la sheegay inay lugta wax yar xagasina ka gaartay qof kale oo ku dhaawacmay ama dhibaato gaartay ma jirto qaraxa weey kaliya meeshii jooga lagu qarxiyay oo lagu toogtay saasana soo ka dhigtay inaan khasaare ka dhacay meesha qaraxan ka dhacay afaafka hore ee akademiyada Journal Kaahiye oo ka soconayay shirka ansixinta dastuurka ee magaalada Muqdisho ayaa saraakiishu waxay sheegeen in fashiliyeen wuxuuna qaraxani uu ahaa mid ay mas'uuliyadiisa ay sheegteen xarakada al-shabaab kiin Umar Makraan Royal TV akademiyada Journal Kaahiye magaalada Muqdisho